السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارتا كنت حنجل لكن سومالي جرافيكس كسول هذا فنا صدرك عشرة امتحانها يعني كذا هذيني فوتوشوبك يعني عشرة إنه روح كصبرني قاب كله دوا فوتوشوبك عشرة كان روح كبرندنا قاب وشغيه فوتوشوبك ورين فوتوشوبك يتصفرنا يسا ديوس ديسكتوب كوسارنين هل كان يتصفرنا يسا marka uu ku soo furmo ayaad ku dubtid Photoshop-ka halkan ayaad ku soo baxaysaa goorta furtid halkan marka timaadid waa xaba ma aan sameyn waa first time hagee Photoshop-ka bilaabaysaa Photoshop sida uu shaqeeyaa waxay qabtaan kuwan halkan taxan kuwan si loogu shaqeysto iyagana halkan maxay tartaa nidaamkan halkan wuxuu u dhisan yahay si uu shaqeysto Photoshop marka ugu horeysa aad soo gashid marka ugu horeysa aad Photoshop saan u dhextimaadid wax kale adigu aan sameyn move toolkan ayaad ku dhufanaysaa markaas ayaad waxa sameynaysaa wixii aad rabtay qabsan kartaa adigu aan move toolka tigin waxa ma sameyn kartaa hadii aad tahay beginner hadii aad tahay advanced adigu aan meel la tigin ayaad wax kasta aad u qabsanaysaa si fudud halkan hadii aan ka bilowno file goorta aad taabatid ugu horeysa sidaan ognahay application walba waa leeyahay file kaas marka wax kasta oo ku saabsan application-ka aad badanaa ka fahmi kartaa file markii aan ku dhufano new noogu horeysa new-na waa la garanayaa new project ayaa la sameysanayaa haddii aad ku dhuftid new halkan ayuu keenayaa ugu horeyn waxaad abuuranaysid magaca aad u bixsanaysid ayaa halkan ku qoranaysaa Somali Graphics oo kale haddaad ku qoratid halkan kusoo baxaya document type-ka waxa aad rabtid default photo size hadii aad rabtid nidaamkan inches ayuu kugu cabirayaa 7 iyo 5 US fiber oo ku jira badanaa laakiin halkan waxa laga isticmaalaa custom kan ayaa laga isticmaalaa iyo international paper badanaa aad loo isticmaalaa international paper kan oo kale waxaad haddii aad sameynaysid daabacad wax ku saabsan daabacad aad sameynaysid international paper-kan ku dhufatid size-kan wuxuu ku siinayaa automatic size-ka jira ee wax lagu daabaco ayuu ku siinayaa A4 A6 A5 A3 B5 B4 B3 C6 nidaamkaas ayaa daabacada default size-ka daabacada ugu badan ee la isticmaalo waa sidaas papers-ka warqadaha marka laga hadlayo weeye intaan wixii ka weyn badanaa waa warqada maaha halkan waxa ku soo fariisanaya colorskan waa muhiim RGB color CMYK color labadan ayaa badanaa la isticmaalaa CMYK iyo RGB insha Allah waxay ku kala duwan yihiin 10 ayaan ka bixin doonaa haddii ilaahay background-ka aad rabtid inaad soo furtid color noocyo noqon doona transparent miya so background color kan halkan aad ku dooran kartaa in background ku soo bixi doona inaad ka dhigtid color guduudan hadii ilaahay hadii kalena white kaas ku soo baxaya waxa kugu fiicana white kaas iska default-ga ah ayaa ku soo baxaya okay hadii aan dhaho maxaa okay markaan iri waxa uu siiyay A4 size oo white ah A4 size kan white ka ah waxaan u baahanahay waa ku qoran karaa hadii aan u baahanahay wax kasta aad u baahan tahay aad qoranaysaa ayaa markaas aad u baahan tahay ayaad qoraysaa text Somali Graphics oo kale ayaan ku qoray nidaamkaas aad u sameynaysaa haddii aad highlight garaysatid colorka ka bedeli kartaa haddii aad highlight garaysatid colorka halkan aad ka bedeli kartaa nidaamka ayaad colorka ugu bedelaysaa colorka aad doontid baad dhiganaysaa markay saas tahay file-kani haddii aan ku laabano aan sii wadano open ayaa dhihi kartaa project cusub ayaa soo furan kartaa
copy waxay kaa saacidaysaa in sawir oo kale inaad copy soo tiraahdid aad rabtid inaad ku shaqaysatid sawirkan oo kale waa loogadan cusub insha Allah aan ku shaqayn doona hadda kadib saana usoo furanaysaa markaas sawirkii aad u baahan tahay aad wax ka bedelaysaa nidaamka sawirka loo cadeeyo nidaamka backgroundka looga jaro waxyaalahaas oo dhan insha Allah casharada dambe ayaan ku qaadan doonaa waxba ha degdegin casharkan waa overview sharaxaad guud faylkii waxyaalahan oo dhan baa ku jira oo export inaad file export garaysid inaad print tiraahdid waxaasoo dhan baa ku jira import inaad soo import garaysid editkii oo kale editkiina waa badanaa insha Allah editkan waxa ku jira oo dhan waxaan isku dayi doonaa inaan u isticmaalno shortcut badan ayaa loo isticmaalaa undo-ga waa forward step backward cut copy waxyaalahan oo dhan ayaa ku jira editka waa sida loo edit gareeyo insha Allah editkan waxay u badnaan doonaan shortcut ay u badnaan doonaan image goortii aan tagno image modelskan sharixi doonaa iyaga adjustmentigan insha Allah isagana aad baan u sharixi doonaa adjustmentigan waa bright contrast waxaa laga siyaadinayaa sawirka meesha laga cadeeyo weeye leveliskan colorskan meesha black and white waxyaalahaas laga bedelo weeye curve isagana waxa weeye sawirka ayaa isagana laga midabkiisa wax laga bedelayaa laga cadeynayaa color balance sawirka colorkiisa nidaamka la soo balance gareeyo hadii uu sawirku cadaan u badnaa in gaduud yar la soo geliyo jaale la geliyo waxyaalahaas oo dhan sawirka meesha black and white ka laga dhigo in sawirka black and white ka nidaamka sawirka loogu dhigo photo filterka inverted waxaan oo dhan ayaa ku jira adjustmentiga kaliya inaad select garaysatid layeriska meesha yaalo oo kale deselect haddii ay wax aad soo select garaysatay selectigaas oo kale waxaad isticmaali kartaa deselect laakiin insha Allah waxaan isticmaali doonaa shortcut bay u badnaan doonaan inaad halkan inta tagtid select aad tiraahdo deselect aad tiraahdo waa process dheer weeye marka waxaan isku dayi doonaa toolskan meesha yaalo dhan insha Allah aan isticmaali doonaa inaan isticmaali marka ugu horeysa sawirkan hadeer waxaan ka bedeli karaa haba yaraatee ma jirto Photoshop marka aad ku shubto uu cusub yahay waa inaad labadan meelood move toolka inta tagtid labadan meelood waa inaad tagtid show transform color iyo auto select markaas kadib sawirkan waana muhiim sawirka hadii aad wax ka bedelaysid inaad qafilkan ka furtid qafilkan sawirka hadii aan laga furin wax laga bedeli karaa male labadan hadaysan ku select garaysnayn sawirkii waa qaadi kartaa laakiinse ma muuqdo in sawirkan ku select garaysan yahay in kale waxa ku muujinaysa show transform color auto selectigan taabo iyadana in si automatic oo ku select garaysmo intaas kadib toolskan iyaguna waxay qabtaan move toolkan wax ugu horeeya ee mar walba isticmaalaysa move toolkan shaqada move toolkan qabanaya move toolkan hadii uusan ku doornayn meel kale ma toolkan haduu ku duran yahay waxaad ka sameyn kartid male waa tool isaguna shaqo ayuu qabanaya laakiinse move toolkan waa inaad isticmaasho mar walba oo aad dhaqdhaqaaq sameynaysid toolkan waxaad ku jiran kartaa wax walba aad u baahan tahay nidaamka aad ugu baahan tahay inay yahay rectangle oo kale inaad wuxuu jiran kartid aad tiraahdo control x ayaad dhahaysaa control x waa cut each way selectigan oo kale inaad daarto inaad iska qaadid aad u baahan meeshaan iska qaadid control d ba taanaysaa waa deselect inaad qaab u kuna inaad qaabkan elliptical aad ugu jirtid ayaa ku jirta meeshaan nidaamkaas iyadana ugu jirta control x ba dhahaysaa control d ba iska deselect toolkan waxa lagu sameeyaa isaga lasso tool polygonal lasso tool vertical lasso tool waa toolashan waxa lagu jira sawirka ayaa lagu jira
insha Allah backgroundka casharka xiga waxaan ku baran doonaa qaabka backgroundka looga jaro sawirka isaga ayaana toolkan ayaana isticmaali doonaa ugu badan isticmaali doonaa noqon doona duulahaydu toolkan magic one tool iyo quick select tool waa tool lagu select gareysto automatic waxa loogu select gareysto quick selection ka hadaan tagno wuxuu ka caawinayaa waxaad haddii aad rabto inaad select gareysatid nidaamkaas inaad u select gareysatid intaas oo dhan oo isku colorka ayuu si wuxuu kugu select gareynaya automatic ah ee aadan manual aan ahayn control D ayaa taamaysa deselect kan oo kale magic toolkan wuxuu kaga duwan yahay kii hore kan inta isku colorka oo dhan ayuu hal mar color saaray hal mar select gareynaya automatic markaas si automatic ayaad soo tuuri kartaa ama colorka ayaa ka bedelan kartaa haddaan toolkan isticmaalno inta madow oo dhan ayuu hal mar inoo select gareeyay control X ayaa iska dhigi kartaa automatic kullu wixii madoobaay oo dhan ka qaaday inta gudaha kaga jirta pointigan maaha haddaan dhaho owdan haddii aan select gareysto owda jaalaha oo dhan buu ii select gareynaya control X haddaan dhaho waa qaaday intii jaalaha ahayd oo dhan waa qaaday nidaamkaas ayuu ku duwan tahay isagana waxaan isticmaali doonaa backgroundka koorta laga jirayo ayaan aad u isticmaali doonaa duulahaydna crop toolkan isaguna waa aad tuulasha muhiimka ah ku jira inaad soo crop gareysatid intaad u baahan tahay inaad crop tiraadid haddii aad crop gareysid badanaa halkan saddexdan meelood waa photoshopka waxyaalaha ugu muhiimsan ee badanaa la isticmaalo ayay ka mid yihiin inaad okay tiraadid aad tiraadid waan rabaa intaas crop intaas iga yahay aad tiraadid tigta asaartid saxda asaartid oo ku crop gareysmo iyo inaad sameysid goorta soo crop gareysid meel khaldan oo kale hadduu kaaga dhacay aad dib u soo celisid aad cropka aan rabin oo kale inaad tiraahdo cropka ma rabo meeshay toos igu celi iga cancel cropkan dhan inaad tiraahdo ama inaad inta saan soo tiraahdo goor soo crop gareysid aad tiraahdo undo yara dib i celi oo kale ama hawshii aad soo qabato oo dhan inaad hal mar cancel iska tiraahdo cropkiisuna waa noocyadan uu leeyahay isaguna laakiinse crop tool kana badan aan isticmaalaa kuwan kale side looma isticmaalo kan waa goorta aad rabtid inaad nidaamkan inaad ugu jiratid inaad u crop gareysatid qaab noocaas oo kale inaad u crop gareysatid nidaamka ayuu kugu crop gareynayaa inaad pointiga ku qalloocisid kan isagana wax laga bedelaa colorka ayaa badanaa laga bedelaa colorska meesha yaalo oo kale kan isagana waxa weeye brush toolskuna intaana iyaguna brush toolska yihiin brush toolska badanaa la adeegsado waa labadan ugu horeeya baa main ah oo la isticmaalaa sawirka insha Allah markaan qurxinayn ayaan isticmaali doonaa sawirka badanaa lagu qurxiyaa brush toolskan labadan kanna waa isaguna laftirkiisu waa brush tool colorska ayaa loo isticmaalaa brushskan kuwa badan oo lasoo download gareysta ayaa jira brushskan insha Allah meesha lagu soo download gareysto waxaas oo dhan insha Allah casharada dambe ayaan ku qaadan doonaa stamkana isagu waa aad buu muhiim u yahay badanaa dadka advanced ah isticmaala beginnerka laguma isticmaalo insha Allah stamkan cashar baan kaliya iska samayn doonaa marka loo isticmaalo sawirka ayaa lagu edit karayaa si deeply ah goontana saddexdan ay goonta u qaybsantaa goonta oo kale inaad adigu meel aad rabtid inaad ku tirtirtid haddii goortii nidaamkan oo kale ugu dooratid way yartahay meeshaan goontan size goonta halkan ayaa laga siyaadiyaa intaad rabtid ayaa ka dhiganaysaa goonta inaad rabtid inaad daciif ka dhigtid iyo inaad rib ka dhigtid ay si fiican u tirtirto nidaamkan ay goontan samaynaysaa haddii aad goonta kale soo qaatid goortaad rabtid inaad iska bedesho right waxaad taabanaysaa right click baa badanaa isticmaalaysaa goontan hoosoo kale haddaan isticmaalo automatic ayay u jaraysaa meeshii inta isku kalarkaayo oo dhan
waana useful aad baa loo isticmaalaa madowga dhan bay hal mar iga jiraysa haddii aan okay dhaho toos ayay madowga dhan u jirtay madowgaan saas kan kale saas nidaamkaas ayay u jiraysaa wixii isku color oo dhan hal mar ayay jiraynaysaa sidaas oo kale goorta aad shaqo dheer oo kale aad qabatay aad rabtid inaad ku soo laabatid sawirkaaga sidii hore inaad rabtid aad ugu soo laabatid waxaad samaynaysaa control alt set ayaa isla taabanaysaa set adigoo control altada haya set waad ku celcelinaysaa set ka taabanaysaa meesha goorta ku keeno ayaad hawshaadi kala sii qabsanaysaa kanna waxaa loo isticmaalaa inaad colorskan aad nidaamkan aad ugu kala duwid laba color aad ka dhigtid badanaa labada color aad isticmaalaysidna halkan ayaa ka dooranaysaa in qayb guduud noqoto qaybta hoosena ay noqoto yellow nidaamkaas oo kale kugu select garaynayaa colors gaarto inaad halkan gashitid haddii aan dib ugu laabto colorkan ka laabano blur toolkan waxaa loo isticmaalaa sizekiisa aan weyneysano blur toolkan oo kale waxaa loo isticmaalaa in shucaac aad gelisid meel aad ka dhigtid blur aad ka dhigtid sizekiisana halkan laga siyaadiyo in aad shucaac ka dhigtid owdaan oo kale blur ayaan gelinaynaa waa focus waa blur in shucaac aad gelisid ayaad loo isticmaalaa toolkan isagana waxaa loo isticmaalaa sawirka ayaa lagu jira goorta sawirka aad rabtid inuusan tama soo qabto pen toolkan isagana editka ayaa lagu sameeyaa oo waxaan badankood qaarkood shaqooyin isku dhow ay qabanayaan shaqooyinka ay qabanayaan badanaa oo isku dhow yihiin mid kastana insha Allah waa sharxi doonaa textiga kan waa kan textiga markii aad rabtid inaad qoraalkan sawirkan markii aad rabtid inaad text ku dirtid halkan waa inaad taabato adoo meel kale aadan taaban text ma qori kartid adigu waa inaad siisid goortay uu soo baxdo textiga markaad rabtid goorta calaamadan waa inuu wato haduusan calaamadan hadeer ma wato waa in textiga calaamadan uu wato calaamadan goortii aad ku dhufatid markaasaad qoran kartaa qoraalka aad u baahan tahay Somali graphics markaas ayaad qoran kartaa halkan aad ka weyneynaysaa size fonti forta size-keeda halkan aad ka weyneynaysaa aad saxanaysaa nidaamkaas aad u wareejinaysaa fontiga in haddaad right click aan dhahno vertical inaad u qortid miyaar taa mise horizontal mise vertical type mark tool nidaamyadaas ay iyaduna leedahay toolkan isaga waxaa loo adeegsadaa shapeska marka aad sameynaysid toolkan haddii aad ku dhuftid rectangle shape haddii aad sameysanaysid nidaamkan designka badan afba tool aad loo isticmaalo weeye in shape aad ku samaysatid shape kala duwan haddii aad rabtid shape nidaamkana aad rabtid telefon xoodan waa leeyahay toolkan insha Allah isagu waxa uu la xiriiraa casharada advanced ayuu la xiriiraa designka waxa lagu sameeyaa designska quruxda badan waa logooyinka iyo ka qayb qaataan goorta bannerada la sameynayo ayaa toolkan aad loo isticmaalaa insha Allah waxaan isku dayi doonaa casharada advanced inaan ku bixino aad ugu sharaxno toolkan overview good Photoshop waa intaas sawirkan oo kale aad wax ka bedesho kala goorta rabtid inaad save gareysatid file ayaa soo furanaysaa save as ayaa dhahaysaa
save as markaad tiraahdo halkan waxaa kuu soo baxaya typeska aad rabtid inaad ku save garaysid badanaa goortii aad rabtid in filekan aad rabtid inaad wax ka bedeshid layers uu yeesho waxaad ku save garanaysaa bsd typeskan insha Allah waa sharixi doonaa mid kasta wax loogu talagalay uu ku fiican yahay waa sharixi doonaa dhammaantood halkaas aad ka save garanaysaa typeka aad rabtid inaad ku save garaysid jpg sawirka formatkiisa caadiga waa taqaanaan save ayaa la dhahayaa save markaad tiraahdo imageka qualitygiisa kuu soo baxay in xoogaa aad quality medium ka dhigtid si haddii aad diraysid oo u dirsamo haddii aad rabtid inaad shortcut oo kale inaad isticmaashid waxaad taabanaysaa control alt s haddii aad rabtid save as markaas aad dhigatid locationkii aad rabtid formatka soo dooratid sida aad ku save garaysid haddii kalena aad tiraahdo file aad soo furatid save as aad kasii geshid halkaas xoogaa waa dheer tahay projectiga haddii aad rabtid inaad wax kasii bedbedeshid oo aadan jpg aadan rabin inaad ku save garaysid control save baa leedahay in kugu dul replace gareeyo kii hore ee meesha ku oolaa windowskan haddii aad soo furtid halkan waxaad uga jeedaa waxyaaba aada u badan waxa weeye wax kale maaha brushes haddii aad u baahantahay halkan ayaad tig kasoo saarnaysaa waxaad rabtid in uu kaaga soo muuqdo gudaha photoshopka softwareka aad rabtid inuu kaaga soo muuqdo shortcut oo kuu soo dhigo meel aad ka access garan kartid ee banaanka aad rabtid inuu kuu soo dhigo halka ayaa ka doonaysaa hadeer toolskan haddii aan tigtaan hadda aan ka qaado meesha way ka qaadmayaan dhanka bidix haddii aad isha ku qabatid uu ka qaadmaya toolskii way qaadmeen halkan ayaana laga soo celiyaa windowska aad tigaysaa toolska aad ku dhufanaysaa layerskan oo kale dhinaca midigta haddii aad fiirisid haddaad tigta ka qaadno way ka qaadmeen mana haddii aad rabtid inaad soo celisid nidaamka ayaa ku soo celinaysaa layers haddii aad rabtid inaad kuwa cusub aad kusoo dirtid bath styleskan haddaad rabtid inaad kusoo dirtid dhinaca midigta ayuu kasoo muuqanayaa waana access garayn kartaa shortcut ayuu kusoo fugayaa fiiri waa kuwaan styleskii nidaamkaas ayay usoo muujinayaan insha Allah bismillah karim intaasaan caawo casharkeena kusoo gabagabaynaynaa warbixintii ku saabsaneed photoshopka subscribe garee channelka subscribe dheh si aad u heshid casharada cusub aan soo gelin doonaa mar walba comment kasoo dhiibo haddii aad casharadu nidaamka u socdaan haddii aad ku qanacsan tahay haddii aad su-aal aad ka dhiibanaysidna waa commentiga aad noogu soo riibaysaa insha Allah la socod wanaagsan casharka dambe habeen dambe ku saabsan qaabka backgroundka loo bedelo sawirka backgroundkiisa loona qurxiyo insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh